intaan oo dhan oo wada cayshii dunsaneed oo ummaddu ku nooleed oo xooluhu ku nooleed waa u jeedaa geela oonka la wareegaa wax ka yar 15 kiiloomitir ayay u jirtaa miriga caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb balse nolosha qoysaska ku nool wali isma bedelin sababtuna waa waxyaabaha nolosha aasaaska u ah sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka oo aysan wali helin dadka deegaankan bulshada ku nool deegaanka miriga ayaa haatan wajahaya biyo la'aan baahsan taasi oo ay u sii dheer tahay abaarta iyo jilaalka oo isbiirsaday kan waa u jeedaa sidoo kale inta isku jiraan sabab waa shabeeteysan yahay waa la cabi jiray wuu dubay waxa dunshay biyihii midka waa arkaysaa ayagana sanadkii dhaweeyay oo rabkii ilaahay keenay yaa dumiyay midkan waa u jeedaa asagana waa sidoo kale kan waa sidoo kale kulli xogta caashi lagu wareejiyo weeye wartii duugantay oo ummaddu ku dabaala jirta markii sanad barwaaqa ilaahay keeno xooluhuna cabi jireen dadkuna qodi jireen marka biyo faara laga heli jira weeye qaar ka mid ah dadka deegaankan oo aan la kulanay ayaa inoo sheegay in biyaha laga isticmaalo deegaankan booyada looga keeno caasimadda Galmudug iyo deegaano kale maadaama ay qarar yihiin biyaha ceelasha gacanta ee ku yaala deegaankan waxayna ugu baaqeen maamulka Galmudug iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya in laga caawiyo helista ceel matoor ay ka helaan biyo nadiif ah iyo goobo kale oo waxbarasho marna way roob doonanayeen ilaahay bay roob ka codsanayeen marna muslimiinta Soomaaliya ta muslim kale ha ahaato ayay baaq u dirayeen baaqaas oo ku saabsan biyo la'aan isbitaal la'aan iskuul la'aan iyo waxyaalo badan oo aad u fara badan waxaan maqlay wuxuu yidhi ceelna uma qodna cidina uma maqna in badan baan soo marnay intii meeshaas deegaanku ahaa dawlado badan maamulo badan cid hadda naga saacidana hadda ka hor ilaahay nama tusin balse wuxuu yidhi bal shabshabla igu day dawladda maamul goboleedka Galmudug dawladda dhexe oo Soomaaliyeed haddii ilaahay ka dhigo jaaliyadaha meesha u dhashay iyo kuwa kale muslimiinta xildhibaano waa la sheegay meeshan u dhashay balse baabuurada markaynu ag marayaan daaqadaha naga xirta anu garan maayo waxaan maqli jiray niba meesha u dhashay ayuu camiraa oo muujiyaa xildhibaano hadda dadkooda iyo meeshii ku dhasheen iyo dalkooda wuxuu qabtayna waa ognahay oo waa aragnay noonsoo kuwanagu waxa ay daaqadaha nooga xiranayaan ma garanayno ilaahay soo toosiyo inay ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo meeshii ku soo barbaareen iyo meeshii quraanka ku barteen meeshii aabayaashood qabuurahoodii ku xabaalan yihiin inay xusaan ilaahay ku soo duwo intaas waa intaas jaaliyadaha u dhashay mirig iyo agaarkeeda meesha adduunyada waxaa la xusaa oo kuugu fiican aad ku soo barbaartay ama wax ku baratay waxaan ka codsanaynaa in ay wax noo qabtaan ilaahay baa wax qaban kara balse inay wax nagala qabtaan baahida jirta oon ka hadalno mirig waa mirig meeshan joognaa xurfadiisii oo biyo gali jireen ciid baa soo buuxisay waxaan rabnaa horta marka koobaad hay'adaha xurfadaha qodaaho inay xurfad noo qodaan lambar 1 marka labaad ceel biyood meeshaan ma lahan ceel biyood ma lahan booyada biyaha waxa laga keenaa Dhuusamareeb waxay jirtaa 15 kiiloomitir biyahaas waa la isku dardarsadaa waxa lagu qaybsadaa fuusto waxaan rabnaa ceel biyood in loo qodo dawladda federaalka midda Galmudug wasaaradaha ay qaabilsan biyahaas sida tamartoo kale waxaan rabnaa ceel biyood in loo qodo oo aan dalbanaynaa waxaan kaloo rabnaa MCH malahan meeshu waa bila caafimaad Dhuusamareeb qofka dhashay
lagula ordaa oo foosha dhaxay ku dhig baxdaa dhaxay maxaan ku raahdaa isha wax walba ku yimaadeen mar waa nabad tagtaa waxaan rabnaa MCH waxaan rabnaa waxbarasho ma lahan meeshu wax waxbarasho la yiraahdo haba yaraatee dugsi quraan xataa ma lahan waxaan rabnaa waxbarasho inaan wax bilaabanaan diyaar u nahay inaan wax qabsanaan diyaar u nahay haddaan helno dad wax nala qabanaya waxaan rabnaa waa aan diyaarsanahay in wax nala qabto waa codsanaynaa si dhow aan u codsanaynaa 200-300 kilomitir hadda la tagaa ilaa gaalkacyo iyo maxaan ku raraa barigeeda la aadaa galmudug waana dul martaa halkaanay martaa safaray ku bixisaa 300 kilomitir in adeegeediina la fuliyo 14 kilomitir caasimadiyana aan dhig jalaq loo siin garan mayna waxay nagu qabatay ciday qusaysan jawaabtaas ka rabnaa waxaan rabnaa in codkanaga si dhow iyo si dheer galmudug ha ahaato federaal ha ahaato in warkanagaas oo la weeleeyo oo dhago wax lagu maqlo si degdegana la kaga soo jawaabo haday tahay galmudug haday tahay federaal haday tahay gudoomiyaha degmadu haba ugu horeeyo caasimada geedo qorow ku xigeenka ninka la yiraahdo Cabdi Xaashi waxaan rabnaa meeshaan baahiyaheedii waa la iska indha tiray lagama jawaabin looma imaan maxaad qabtiina lama dhihin waa aan garan weyn waxay taas nagu qabatay